kusoo dhawaada daawadayaal qaybtii koowaad ee sheekadii Cirbaddi Eelka Reebtay. Sheekadan waxaa qoray Cabdullaahi Saalax Axmed, waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdirasaaq Haajirow. murugo oo idil ayaa igu dhagan, in ka badan inta naftayda aan u caraysanahay ayaan bulshada u cilqabaa. murugada iyo urkutaaladase waa igu kaligay, sidaan qaba ma jiro qof soo jeeda xilligan dambe. waase fursad fiican oo aan naftayda kaga takhalusi karo. ha ila yaabin, 7 bilood ee ugu dambeysay saas ayaan ahaa. halgan ayaa aniga iyo naftayda inoo dhaxeeya, jirka iyo maskaxda oo dhan baa isdiidan. xiriirada iska hor imaanaya waxaa ugu culus loolanka wadnaha iyo maskaxda ee dhexdayda ku hardamaya. go'aano culculus oo degdeg u ka muuqda ayaa qalbiga ka imaanaya. maskaxda ayaa kala shaandhaysa oo caqli ku darba istiraada oo caqli bay ku dartaa. habeen kasta tashigan la noolahay, hal rajo ayaase waa beriga i gaarsiisa. hal kaliya, taasina waa arkida nafta aan agjooggeeda xiiseeyo. 7 bilood ee ugu dambeysay in dartii aan u noolahay iyo in mawdku uu iga soo habsaamay ayaan gara kari lahay. subax isma aragno oo faquuqida walbahaarka igu abuurtay ee bulshada igaga imaanaysa ayaana kala qarisay. galbaha qaarse ayaan ugu tagaa isbitaalka xaafadda oo dhawaan loo soo wareejiyay. isaga ayaa igula taliyay imaanshiyaha galabtii. naxariistu waa mid ka mid ah dabeecadihiisa wanaagsan ee tirabeelka ah. shalay aroortii ayaan u tagay. foolkayga ayuu samarugada ka akhristay. sidee wax u jiraan ayuu iga naxsaday. anigoo weli aamusan ayuu yidhi, ma waddadii baad soo martay? madaxan u ruxay. dejinta xaaladayda ayuu isku howlay, isagoo niyadda ii dhisaya, jahliga bulshadana dhinacyo badan iga tusaya. waxaasoo dhanse waxaan ku ilaawaa kaftanka iyo dhoolacadayntiisa bilaashka ah oo aan ka waayay kuwa kale ee aad moodid inay u heshiiyeen colaadintayda. saaka waxaa iga cadhaysiiyey haddii uu weydiiyey. waxaan u sheegay inaan maray dariiqii yaraa ee xaafadayda ka dambeeyey. waxaa meel hortayda ah taagnaa 3 hablood oo 2 ka mid ah aan garanayay. daris baaynu nahay. waxaan ka warqabaa inay dhigtaan jaamacadda, gaar ahaan kulliyadda caafimaadka. inanta saddexaadse ma garanayo. kolley waa isku jaamacad oo waa kuwaas baskii sugaya. waa tii bugtay iyo wax la mid ah ayay yiraahdeen. inantii cusbayd baanay u sharaxayeen xanuunkayga, iyadoo u haysata inay la faqayso. codkeeduse uu dheer yahay, dhagahaygana uu soo gaarayo. ma kulle xataa ayaa igu soo dhacday. haddana talooyin badan oo dhakhtarku siiyay ayaa maskaxdayda ku soo dhacay. waxaan naftayda ku qanciyay in hadalkooda uusan waxba tarayn, balse uu sii abuurayo booq. waxaanse sii ogahay cadaalad xumada bulshadu ay saarayso iyo eexda ay igula kici doonaan. dhinac baan derbiga isugu boosay, anigoo derbiga raacaya, iskana dhigaya inaanan hadalkooda maqal. kolkan Axmed u sheegayna intii karaankiisa ahayd, xanuunkuna qadar alle inuu yahay ayuu i xasuusiyey. Axmed waa qofkii ugu horreeyay ee iga waraysta xaaladayda baryahan dambe. indho shaki leh iguma eego. sida uu ii dhuganayo ayaad ka garan kartaa inuu dhuuxayo hadalkayga. taasina waa ta igu dhiirigelisay inaan u xaal warramo. waan hubay qof kasta oo bulshada ka mid ah inuu qalad igu xamanayo. mid nafteeda dayacday, waraabayaashana baylaha u noqotay in ay igu caynayaan, marnase xumaan kuma aana kicin. waxaase laga yaabaa inay ku takooraan shaqaale caafimaad. axmed se markan u imid su'aalaha hordhaca ah ee uu weydiiyey, waxaan dareemay nafis. waxaanse gudaha u galay sharaxaad aan baryo ku dhiiran waayey. markaan soo hadal qaadana la oran jiray waa beenteed. su'aalaha aan abid layga rumaysan ee uu madaxa u ruxay waxaa ka mid ah, sideed xanuunka ku qaaday? goorma ayaa lagugu sheegay? iyo qaar kaloo badan oo igu dhalinaya. bilaabidda sheeko dheer, sheeko iga dhigtay tuka balcad. waxaanan bilaabay qisada noloshayda, waxayna ku bilaabanaysaa sidan. qaybtii koowaad ee sheekadii Cirbaddi Eelka Reebtay waa naga intaas. fadlan si aad u hesho qaybta labaad, kanaalkan subscribe saar. mahadsanidin.